taageerayaasha Pierre-Emerick Aubameyang-ha gooldhaliska badan, Riyad Mahrez-ka farsamada badan, Sadio Mane-ha xawaaraha badan, Andre Ayew-ga xukuumadka dhexe ama Yaya Toure daran 22 ka ciyaartay meesha joogay ayaa garoonka dagaal ku dhexmaray kadib markii Aguero oo goolhay oo David Luiz oo haraatay difaaca Chelsea kubadda oo la orday loogu yimid laga dafay haraatib oo bareer ayuu ku dhiftay kadibna kooxdii dhan dagaal dhexmaray taasna waxay keentay in ciyaartoy kale Fernandinho asna ralasi kadib markuu intuu qoorta ka qabtay Fabregas oo ku tuuray meesha xayeysiinta lagu baxay gadaashooda uu ku riday taas marka waxa u malaysaa labadoodaba mar hadiiba si oo ula kaco oo qayl oo aan maxalna waxa dagaalka loo yaqaan garoon ku sameeyay waa saddex ciyaar oo muran aan ka taagnayn ayaa lagu bixinay marka Aguero saddex ciyaar oo maqnaan doona Fernandinho saasoo kala sigan marka taasna waxay u tahay City dhibaato hor leh ayay u tahay waa laba guul daro ciyaartii maanta waa laga badiyay ciyaaraha dambana saameyn ay ku yeelanaysaa maadaama ciyaartoy ay ka fariisan doonaan marka City labada meel baqsaari qabta City waxa u malaysaa cabsida iyo wixii laga qabi jiray galabta waxa u malaysaa Axmedow aad iyo aad inay u liiteen kubadii quruxsanaa isku dhibi jireen meelaha fiican laga dhex bixi jiro aad u quruxsanaayo kooxaha cabsi ku abuuri jiray inaysan galabta jirin oo inta badan Costa u dhaay soo baxa oo Costa oo nafta u keenaba difaaci dhamo kala daadiyo oo Tamandi iyo Steve Jones naftigiisa waa la bedelay Kalarof saddexdu wuxuu ka dhigaba niman oo asiga jab ku haysto maruu dilay maruu riixay maruu kubad ka dhiib hasaarna kubadda dhexda markii looga soo qaado oo soo dhiibto oo la ordaa kan oo la dhaafa waa la gadooma kubadda ma ka qaadi karaan kadibna dhibaatada waxay ugu sii darsantay goolasho dhanba Chelsea ayaa wada dhalisay mid iska dhalisay iyo mid iyadu dhashay marka deysan waa adagtaa soo maahan runtii Axmed oo ciyaar aad iyo aad u adag ayaa meesha ka dhacday oo xiiso badan leh qaybta horena waxa u malaysaa in la isku dhawaay laakiin Chelsea ay wax iska difaacisay kadibna ay gool la hormartay oo Cahill iska dhalay kubada badan lagu riday laakiin markii la soo noqday waxa u malaysaa ciyaarta inay isbedel ku yimid oo gacanta sare ay soo yeelatay City ay fursado badan sameysay kaasoo Kevin De Bruyne kubad loo dhigay goolka oo ku garaacay Aguero fursad oo helo dhali lahay ka fakatay gool kale loo dhigay oo dhali waayay Kevin De Bruyne goolka afkiisa kubad loo soo dhigo birta ku dhiftay kadibna kubad Fabregas uu gamadiyay Costa xabad oo saartay oo Tamandina oo iska celiyay goolkan oo dhigtay kubad hoose ka dhali taasoo barbarac oo ka dhigay niidooda ayaa soo noqotay markay soo noqotay haddana kubad kale oo warcelin ay ku heleen William ayaa ka dhashay Costa ayaa u dhigay markuu dhigtay isla markii xariiq oo la galay kubad hoose oo kale ayaa laga dhigay kadibna niidii Chelsea ayaa sii kacday City waxay isticmaaleen marka way saaro barbarac